munaasabada 26 juun 27 juun iyo 1 luulyo oo kala ahaayeen 26 juun ay xorriyadda qaateen gobolada waqooyi 27 juun ay xorriyadda qaateen wadanka Djibouti iyo 1 luulyo ay xoroobeen gobolada koonfureed isla markaana la midoobeen gobolada waqooyi haddaba waxaan ugu talagalnay barnaamij gaar ah oo ku saabsan xorriyadda 1 luulyo waa kana barnaamijkii daawasho wacan مانتا ومالي ويلي مانتا مانتا مدحين بناني مانتا مانتا ومالي ويلي مانتا مدحين بناني مانتا dunida ku nool waxa ay leedahay maalmo taariikhdeeda ku weyn isla markaana ay lagu xasuusto geesiyaashii dhiigooda iyo maalkooda u huray xorriyadda ay haystaan ummadda Soomaaliyeed oo kamid ah ummadaha caalamka waxa ay leedahay maalmo ay si gaar ah ay u qadariyaan kuna weyn xasuustooda maalmahaas waxaa kamid ah 26 juun oo ahayd maalintii ay xoroobeen gobolada waqooyi iyo 27 juun oo ay xoroobeen 1977 wadanka Djibouti iyo 1 luulyo 1960 oo xornimada qaateen gobolada koonfureed isla markaana la midoobeen gobolada waqooyi haddaba haddii aan si gaar ah u falanqeyno halgankii loo soo maray xorriyadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed wuxuu qayb ka ahaa ummadihii Afrika ee lagu kala qaybsaday magaaladaasi Berlin waa dalkii la oran jiray Jarmalka bari 1884 dalka Soomaaliyeed waxaa loo qaybiyay 5 qaybood oo kala ah qaybta waqooyi oo gacanta loo geliyay dalka Ingiriiska qaybta koonfureed oo Talyaaniga qaybta barina waxaa qaatay Faransiiska hase yeeshee markii dambe qayb kamid ah dhulka Soomaaliyeed waxaa lagu wareejiyay Xabashida sidoo kale qayb kamid ah ciidda Soomaaliyeed Ingiriiska wuxuu si qalad ah ugu daray dhulkaasi Kenya markii sida loo qaybsaday dhulweynihii Soomaaliyeed ayaa dadka Soomaaliyeed waxay bilaabeen halgan adag oo ay ka soo horjeedaan gumaystayaasha dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay halganka waxaa hogaaminayay halgamaa Axmed Gurey Ibraahim Axmed Gurey halgankaasi waxa uu bilowday 1528 waxaana halgamaa Axmed Gurey u suurta gashay inuu jabiyo boqortooyadii Xabashida markii ay dagaalkaasi ay ku jabtay waxay u qaylo dhaansatay ciidanka Ingiriiska dagaal aad u qaraar ayaana maalintaasi dhex maray ciidanka Soomaaliyeed iyo kuwa Xabashida oo ay taageerayaan ciidanka Ingiriiska halgankii xigay waxa uu ahaa halgankii uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ciidanka Ingiriiska iyo kuwa daraawiishta ee Soomaalida dagaalkooda waxa uu socday in ka badan 20 sano markii ciidanka Ingiriiska loogu adkaaday dhinaca iyo lugta waxay adeegsadeen diyaarado inay ku duqeeyaan ciidamada daraawiishta A network of forts establish the territory of their state. This political strategy makes them immobile. Military roles are reversed. The dervish structures become fixed targets. After World War I, the British vowed to crush the Sayed movement quickly and economically. In 1920, a major expedition combining air, ground, and naval forces is dispatched to Africa with the Air Force in command. For the first time in history, air power will determine military strategy. Air Vice Marshal John Gray remembers. In previous encounters with the British, he'd always had the advantage of extreme mobility. He could move about that country so easily and quickly. The airplane reversed that, and we had the initiative, which was quite a new thing. The target is the dervish headquarters at Taleh. We'd got the Mayflower bottled up in this fort and bombed it. I think we did probably a fair amount of damage. The Sayed curses the planes. fariisimahooda 22 Janaayo 1920 waxay ahayd markii uu Ingiriiska adeegsanayay diyaaradaha dagaalka wuxuuna duqeeyay baan u geystay
taliska ciidamada daraawiishta ee magaalada Taleex ku yaalay. halganka sidaasi kuma hakan waxaana meeshii ka sii waday ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL kaas oo la aasaasay 15 May 1943 xubnihii ururkaasi aasaasay 13 dhalinyaro waxa ay kala ahaayeen kow Cabdiqaadir Saqaawdiin oo ku dhashay Deeglow Bakool sanadkii markuu ahaa 1919 waxa uu jiray 24 sano. Maxamed Xirsi Nuur CD kuna dhashay Mareeg gobolka Galgaduud 1915 waxa uu jiray 28 sano. Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke oo ku dhashay Hobyo gobolka Mudug 1917 waxa uu jiray 26 sano. Xaaji Maxamed Xuseen Maxamed oo ku dhashay Muqdisho 1917 waxa uu jiray 26 sano. Cismaan Geedi Raage oo ku dhashay Muqdisho 1925 waxa uu jiray 18 sano. Xaaji Maxamed Cabdullaahi Xayeesi oo ku dhashay Muqdisho 1918 waxa uu jiray 25 sano. Dheere Xaaji Dheere oo ku dhashay Muqdisho 1926 waxa uu jiray 17 sano. Daayir Xaaji Cismaan oo ku dhashay Hobyo Mudug 1925 waxa uu jiray 18 sano. Cali Xasan Maslax oo ku dhashay Muqdisho 1919 waxa uu jiray 24 sano. Maxamed Cali Nuur oo ku dhashay Muqdisho 1927 waxa uu jiray 16 sano. Maxamed Faarax Xiluule oo loo yaqaan Farnaajo oo ku dhashay Mareeg gobolka Galgaduud waxa uu dhashay 1925 waxa uu 18 sano. Mutow Macalin Cabdullaahi Saalax oo ku dhashay Mareeri gobolka Shabeellada Hoose 1926 waxa uu jiray 17 sano. Maxamed Cismaan Baarbe oo ku dhashay Baardheere gobolkaasi Gado 1910 waxa uu jiray 33 sano. xisbiga SYL durbaba waxa uu bilaabay inuu dadka ka wacyigeliyo difaaca dalka hooyo wuxuuna shirar iyo kulamo gaargaar ah la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaana markaa kadib u suurta gashay xisbiga SYL inuu noqdo xisbi siyaasadeed oo markaana aan la gamban fikradiisa ku aadan miisnacira ministiyaasha markii ay dareemeen in xisbiga SYL uu hantay taageerada bulshada waxa uu gumaysigu sameeyay xisbiyo dabadhilif u ah halganka gobonimo doonka si ay ugu hortagaan shacabka Soomaaliyeed waa uu sii laba lixaadsaday waxaana gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliyeed ka abuurmay xisbi siyaasadeed oo lagu magacaabi jiray SNC kaas oo dagaal adag kala hor yimid isticmaalkii Ingiriiska labada urur SYL SNC waxa ka dhaxeeyay xiriir hoose waxayna ka midaysnaayeen in dalkooda Soomaaliya laga xoreeyo isticmaalka kadibna markii uu geeriyooday ogayihii guud ee ururka SYL Yaasiin Xaaji Cismaan ayaa golaha fulinta ee ururka SYL waxay si buuxda isugu raaceen in Cabdullaahi Ciise Maxamuud loo magacaabo inuu noqdo xogayaha guud ee ururka SYL. Cabdullaahi Ciise markii loo sheegay in loo magacaabay jagada xogayaha guud ee xisbiga SYL durba waan aqbalay ma uusan dhihin balse markii uu ka fikiray arintaasi ayuu aqbalay. Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxa uu ku dhashay degmada Afgooy sanadkii markuu ahaa 1922 wuxuuna xisbiga ku soo biiray asigoo 18 sano jiro. Concordia con il nostro amministratore incaricato di promulgare le leggi. Ci parla il primo ministro Abdullah Hissa. 4 anni ormai godiamo di una piena e assoluta autonomia interna ed anche di una crescente partecipazione ai problemi internazionali riguardanti il nostro paese. Questi 4 anni di autonomia e di responsabilità governativa sono stati provvidenziali per porre e consolidare le basi del nostro Stato indipendente e tutto ciò è stato realizzato con sostanziale anticipo rispetto ai termini dell'accordo di Tutela. Durante muddo kadib markii uu qabtay jagada xogayaha guud ee xisbiga SYL Cabdullaahi Ciise wuxuu si xawli ah isugu duwareegay arrimihii shaqo ee horyaalay xisbiga waxaana markaa kadib loo baahday in siyaasadda xisbiga SYL ee gudaha ka socoto la gaarsiiyo dalka dibadiisa. arrimahaasina waxaa si gaar ah loogu xilsaaray Cabdullaahi Ciise dhowr shir oo caalami ah ayuuna ka qayb galay. Cabdullaahi Ciise mar walbana wuxuu ka cadeynayay in gardarrada uu gumaysiga ku hayo shacbiga Soomaaliyeed. bishii Sebtembar 1949 shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu qabtay dalkaasi Faransiiska ajandayaasha loogu hadlayay waxaa ka mid ahaa qadiyadda Soomaaliyeed. haddaba si
haddaba waxay soo rogtay go-aan tilmaamaya in qof kasta oo dalka ka dhoofaya la talaalo. talaalkaasi ayaa ahaa mid qofka marka la talaalo ku keenayo qandho xanuun badan muddo 2 toddobaad ah. si cabdulaahi ciise uusan ugu daahin shirkaasi ama uusan ugu baaqan talaalkii ayaa waxaa isku dhigay halgamaa muuri oo ahaa nin xoogaa muuqaal ahaan cabdulaahi ciise ay isku eg yihiin. sababtii uu sameeyeyna waxa ay ahayd intii cabdulaahi ciise uu xanuunsan lahaa ama uu dhiman lahaa aniga ah xanuunsada islamarkaana si uu ugu qayb galo shirkaasi ka dhacayo UN-ka. muddo ka badan 2 toddobaad ayuu la xanuunsanaa muuri. talaalkii lagu dhuftay cabdulaahi ciise waxa uu sii maray London, balse safaaraddii Faransiiska ee London ayaa xoogaa ka meermeertay in fiisa ama dalku gal in la siiyo cabdulaahi ciise maxamuud. xilligaasi ma uusan haysan wax baasaboor ah, balse waxa uu watay warqad magaceeda uu ahaa marka la soo gaabiyo BSA. hase yeeshee waxgarad Soomaaliyeed ee ku nool London ayaa u sheegay cabdulaahi ciise in uu jiro tareen degdeg ah oo tagaya magaalada Paris. sidii ayuuna ku raacay cabdulaahi ciise tareenkii kuna tagay shirkii UN-ka. cabdulaahi ciise maxamuud waxa uu shirka UN-ka ka hor cadeeyay in Soomaalida ay u dagaalamayso dalkooda hooyo inta gumaysiga uu ku jiro taaka ka mid ah geyga Soomaaliya. xorriyad ayaan doonaynaa dalkayaga guud ahaantiisa waa inuu ka baxaa isticmaarka. hadalladaasi iyo hadallo la mid ah waxa uu ka bedelay jawigii shirka, islamarkaana waxaa fariistay guddigii UN-ka. waxa ayna soo doorteen 4 dal oo kala ahaa waa dalka Maraykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka si ay u soo indheeyaan qadiyadda iyo sida ay u rabaan ummadda Soomaaliyeed xorriyadda. shirkii markii uu dhammaaday cabdulaahi ciise dalkii ayuu dib ugu soo laabtay. warbixin ayuuna siiyey golihii dhexe ee xisbiga Israa'il kuna saabsan socdaalkiisa Faransiiska ee shirkii UN-ka. madaxdii 4 dal ee loo magacaabay soo eegidda ummadda Soomaaliyeed sida ay ugu heelan tahay helidda xorriyadda ayaa markii ay yimaadeen dalka waxa ay durbaba arkeen dadkii Soomaaliyeed oo samaynayo banaanbaxyo kuna dhawaaqayo erayo ay ka mid ahaayeen ha dhaco isticmaarku, ha ka baxo dalkeena, waana u dhimanaynaa xorriyadda inta qofkeena u dambeeya uu nool yahay. markii ay dib u laabteen 4taasi dal waxay warbixintii ay soo arkeen u gudbiyeen UN-ka. kadibna golihii ammaanka waxa uu soo saaray go'aan tilmaamaya in Soomaaliya la siiyo maamul hoosaad 10 sano ah, Talyaaniguna uu sii maamulo muddadaasi. haddaba maadaama ay soo dhowaatay shucladii xorriyadda ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo astaan ama calan ay isku aqoonsadaan shacabka Soomaaliyeed. halgamaa Maxamed Cawaale Liibaan ayaa ku guuleystay in uu soo bandhigo naqshadda calanka ee maanta aad arkaysaan. bishii Juun 1960 ayaa gobollada waqooyi ee dalka waxay ku guuleysteen inay hantaan xorriyaddoodii. waxaana maalintaasi gobollada waqooyi oo dhan ka dhacayay isku soo baxyo farxadeed oo lagu muujinayo guusha halganka xorriyadda. 4 maalin kadib gobollada koonfureed ee dalka waxaa u rumowday rajadii ahayd inay ka soo hoos baxaan isticmaarka gacantiisa. waxgaradkii gobollada waqooyi iyagoo wata calanka islamarkaana ay horkacayaan Allah u naxariisteen Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo Cali Garaad Jaamac waxay u soo ambabaxeen magaalada Muqdisho si ay ula midoobaan walaalahooda koonfureed ee Soomaali weyn. si weyn ayaa loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waxaana la dejiyay hotel Shabeelle oo ku yaalay faras magaalada Muqdisho. 1 Luulyo 1960 saqdii dhexe ayaa daarta weyn ee Fiisha Governo waxaa laga taagay calankii Soomaaliyeed waxaana la dejiyay calankii Talyaaniga iyo kii Ingiriiska. يزيد سبان
عالم كانوا سوقيني إنسان جزاهيو زرم ويله راعيو زغل من تدروريو زيغدين قاميريو ساحر سقدان وعيني كيسو زرع الويدو زوايا بوكايا حجيجا مزازيو زاحيكي جلبوكي زرع يوم نصقامو عزيزو يميهو كان زيبك النزاري xusuus lama ilaabaan ah sidii loogu xusi jiray maalmaha kuwan shacabka Soomaaliyeed iyadoo markii ay soo dhawaatay laga dareemi jiray guud ahaan wadanka Soomaaliya iyadoo si gaar ah loogu soo diin jiray barnaamijyo ku saabsan xurriyadda saxaafadda haddaba ugu dambeyntii barnaamijkeena iyadoo ay mudan tahay in la maamuuso maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed ayaa waxaa nasiib darro ah in qarannimadii iyo midnimadii dhibka badan laga soo maray ee faraha howlyari ugu baxayso sharaftii iyo cisigii Soomaaliya ku lahayd caalamka maanta ay tahay mid ku dayacan daafaha adduunka balse rajada alle lagama quusto waxaa hubaal ah in maalmaha ka mid ah la arki doono shacabka Soomaaliyeed oo gacmaha is haysta dibna u dhista dalkooda haddaba barnaamijkeeni intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa iyadoo aan taariikhda Soomaaliya lagu soo koobi karin barnaamij kaliya barnaamijkani waxaa soo saaray anigoo Sikriye Xaashi Afrax dhanka farsamada iyo kaamirada waxa ay noo hayay farsamayaqaankii weynaa isla markaana ah maamulaha Soomaali Kulan TV haddaba barnaamij kan lamid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa heesihii iyo riwaayadihii la sameyn jiray ee daawasho wacan manta madaxin banaani manta manta walaali weyne manta madaxin banaani manta Mira,
nabadda lagu weheshadaa midnimo iyo wada jirba siyaasadda lagu wadaa midnimo meelaad kula hirata iyo dalkaago madax bannaan hadduun calanku mudday bulshada kala maqa ku dhaxo meelaad kula hirata iyo dalkaago madax bannaan hadduun calanku mudday bulshada kala maqa ku dhaxo adoo kaliga mutaxan haddaad tahay maalqabeen maxay hantii ku tartay daawadayaal intaas waxaa inoogu dhammaaday heestii wadaniga ahayd halka aad ka daawanaysaan waa Soomaali Kulan TV daawadayaal markana waxaan idiin soo qabtay hees markaa heestan maqashaan gabigiin waxaan filayaa in aad kuraasta ka wada istaagi doontaan isla markaana aad u istaagi doontaan waa heestii Soomaaliya tooso waa tanaa heestii daawasho wacan tagdarane taageera weligiine waxaan la ooyayo ilmadayga qubanayso qarnigeeniyo idilba wada gaadhaya fadaye Soomaaliyeed tooso
iga qubanayso arligeeniyo idilba wadagaadhay afadaye Soomaaliyey qoso isku tiirsadaye arbakiina taagdarane taageera weligiine ummadeeni cayrowda umoliyo dhibaan arkaya eedaadka aad ku jirtaan baan anfacada la diidaaye Soomaaliyey qoso isku tiirsadaye arbakiina taagdarane taageera weligiine waxaan filayaa dad fara badan inay ilmeeyeen amaba ay qiiroodeen halka aad ka daawanaysaan waa Soomaali Kulan TV daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkani waxa ay kala qayb qaatay wariye Maxamed Ducaale Maxamed wariye Cabdikariin iyo soo saaraha barnaamijka isla markaana ah maamulaha Soomaali Kulan TV Aboole waxa ay idin daadihinay anigoo ah Sikriye Xaashi Afrax intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono inagoo isku duuban waxaynu idin leenahay sidaa iyo is aragti dambe oo xiiso leh doohayo caruurta la dilayayo ummadii dhammaystaye diiniba miyay jirine Soomaaliyey qoso isku tiirsadaye arbakiina taagdarane wayelkaala doohaye diiniba miyay jirin